John Stones, Ilkay Gundogan iyo Phil Foden ayaa seegi doona safarka ay kooxda Manchester City ku aadi doonto dalka Mareykanka, halka Erling Haaland, Calvin Phillips iyo Alvarez lagu soo daray liiska ciyaaryahanada ku ciyaari doona Mareykanka. Kadib markii soo bandhigtay ciyaaryahanka cusub ee la soo wareegtay kooxda Manchester United ayaa shaaca ka qaadi doonta saxiixeeda saddexaad ee xagaagan. Manchester United ayaa loo badinayaa inay soo bandhigto difaaca kooxda Ajax ee Lisandro Martinez. Arsenal ayaa la soo wareegtay 4 ciyaaryahan waxayna doonaysaa Martinez inuu noqdo saxiixooda shanaad. Taa beddelkeed waxay heshiis la gaadhay daafaca Manchester City ee Zinchenko si ay u keento Emirates Stadium, waxayna ku rajo yihiin inay si dhow usoo gabagabeeyaan heshiiskan oo 35 milyan ah. Warka ugu xiisaha badan ee la isla dhexmarayo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ayaa noqonaya sidee ayay Barcelona u awooday inay la soo wareegto ciyaaryahanno cusub iyadoo 1.3 bilyan deyn lagu leeyahay.